السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي سو dhawaada maanta maxaan noo wadaa ceesh iyo maraqiisa oo inaba caadi ahayn sidaan u sameeyna ila daawada ugu horeyn digsiga dabka soo saaray waxaan ku soo shubayaa saliid yar kadibna laba xabo oo basasha ila cabaar markaan shiilo kadib waxaan ku darayaa hilibkana waxaan sameynayaa intaan waxyaabo kale aan ku darin marka hore waa soo bisleynayaa kadibna waa kana markii aan soo bisleeyay kadib waxaan ku darayaa asxaabteyda sida caadada noo ahayd waxyaabihii carafta aan ku daro cuntada ayaan ku darayaa kadibna yaanyo aan soo shiidan ku darayaa kadibna waan daboolayaa asxaabteyda markay maaragtay yaanyada soo shiilanto ayaan ku soo laaban doonaa isla socod wanaagsan waa kana asxaabteyda way soo shiilantay waliba si qurux badan ay u soo shiilantay waxaan ku darayaa baradho oo biyo ku soo kariyay qiyaasta baradhadana nus kiilo waaye waa baradho yar yar waaye saa u jeediinba waxaan kaloo ku darayaa hal xabo oo karood iyo jab oo barbarooni ah toon iyo kabsaraan ku darayaa iyo hal bakeeri oo biyo ah waxaan rabaa in maaragtay baradhada si fiican ay maraqa ay dhaxda ugu gasho ayaan rabaa asxaabteyda kadibna waan ka daminayaa waxaan soo saaray bir waxaan maaragtay dubayaa hal iyo labana idin la wadaagi doonaa ceeshkii soo dhameystiran oo ku jira tiktok asxaabay anoo qasaayo anoo dubaayaba wuu ku jiraa haddaa iga codsatiin waan soo geli doonaa insha allah waa kana haddii qasitaanka oo maaragtay qurux badnaadana ceesh qurux badan oo kuu soo baxaayo marka ka faa'iideysta asxaabteyda qaaliga ah kadibna waa kana waa soo diyaariyey markii aan soo dhameeyey suugadii sidaan u soo diyaariyey ceeshkii iyo salarkii hadda lagama sheekay karo alaab qurux badan waaye asxaabteyda ka faa'iideysta ceeshkii lagama sheekay karo asaga dhan waxaan ku dhex doolsho camal maasha allah saa u jeediinba dhexdiisana waa kana ciirin ma ahan sidaas u qurux badan yahay waxaa jeceshiina maaragtay ku shubi kartiin dhexdiisa masana waa ku cuni kartiin idinka iyo jooskiina marka ani waxaa mar walba jeclahay waxaa nafteedu u jeclahay inaan idinla wadaago asxaabteyda qaaliga ah labadan birina culeys iyo caajisa isku jira ii soo duceeya waxaan idin leeyahay ka faa'iideysi wacan walaalahayga qaaliga aan jeclahay oo igu xiran soona dhawaada anaa idin dhadhaminayo ma fahanteen idinkana qaybta daawashada ii qaabilsan tihiin soo dhawaada ayaan idin leeyahay asxaabtii qaaliga ah waxaan idinkaga tagayaa khayr iyo caafimaad salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu